Hobyo waa magaalo xeebeed taariikhi ah. hal qarni ka hor waxa ay ahayd degmo caan ah. hase ahaatee marka la sheekaysto dadka muddada dheer ku soo noolaa Hobyo waxa ay ku sheegayaan in degmadu ay dib u dhac weyn oo dhanka horumarka ah la kulantay. dadka u dhashay hadda ku walba waxa jirtay waliyo kabtana markii dekada la keenay Hobyo ayaa suuxi dambe subaxda ka soo waxa loo raray Boosaaso madaxweynaha markaa joogay Maxamed Siyaad Barre Allah naxariistay baa waxa yiri maxaa u raraysaa alaabtan waxa u rarayaa buu yiri magaalada dadkii iska lahaa baa London iyo Paris iyo Mombasa dhismay. sanadkii 2016 ayaa maamulka Galmudug waxa uu sameeyay maamul degmo. xilligaas muuqaalka degmadu wuxuu ahaa mid aan indhaha u roonayn. dadka halkan ku nool ma aysan haysan adeegyada aasaasku ah nolosha dadka sida caafimaad, waxbarasho, koronto iyo wixii la mid ah. magaaladu jidad ma lahayn, xitaa dadka u soo safraya magaalada waxa ay dhib badan kala kulmi jireen wadooyinka soo gala oo uu bacaad gooyay. garoon diyaaradeedna haba sheegin. sida in kaga muuqata muuqaaladan oo warbaahinta Awow Media ay dhowr sano ka hor duubtay, waana mid ka mid ah wadooyinka soo gala Hobyo xilli ay ku xanibnaayeen gawaari fara badan. shacabka loo helin meel kale ay dad maraan ama diyaarado ama airport oo soo dhismay Hobyo waa go'an xagga wadada xilli ay xaaladahaas ba'ani ka jireen Hobyo ayaa maamulka degmada oo kaashanaya dadka deegaanka iyo ururo maxalli ah waxa uu bilaabay dhaqdhaqaaqyo wax looga bedelayo horumar la'aanta degmada ka jirta. dhammaan inta ku abtirsatay Galmudug iyo Hobyo shacabkeeda deegaan ahaan ka soo jeeda waxaan idinka codsanaynaa inaad naga caawisaan horumarinta degmada. Hobyo waxaan doonaynaa hiil bay u baahan tahay inaad u hiilisaan. Hobyo cidda danaynaysa airportkeeda oo Hobyoodka ah oo Hobyo ku abtirsata meel walba ay joogaan, hadday gudaha joogaan iyo hadday dibadda joogaanba dadka gudaha jooga waxay bilaabeen kaalintoodii boqolkiiba 50 way shubeen. dadka dibadda jira wali waxba kama hayno. waxaan ka codsanaynaa jaaliyadaha dibadda inay ayaguna soo bilaabaan hadday rabaan inay meel walba ay jiraan ay saacado yar Hobyo ku yimaadaan. marka ummadda la soo jeediyaan leenahay dalkoodii dadkoodana hadii maalin kasta qof walba wax isku darayo inta loo galo waxba ka soo baxayo hadda wabillahi tawfiiq in ka qayb qaataan leenahay. durbaba waxaa lagu guuleystay in la dhiso garoonka diyaaradaha ee Hobyo kaas oo fududeeyay socdaalka dadka deegaanka, suurana galiyay in dad fara badan oo dalka iyo dibaddaba ka yimid isla markaana daneynayay Hobyo ay halkan soo gaaraan. garoonka diyaaraduhu waxa uu muuqday il muhiim ah oo u furantay Hobyo. waxaa magaalada lagu qabtay shirar ballaaran oo looga hadlayay arrimaha Galmudug. waxaa durba degmada soo gaaray hay'adaha samafalka oo qaarkood hadda ka howlgala Hobyo. waxaa sidoo kale degmada Hobyo laga hirgeliyay warshadda kalluunka taas oo shaqooyinkooda rasmiga ah ay dhowaan bilaaban doonaan, isla markaana la sheegay in ay ka shaqo geli karaan ilaa 400 oo shaqaale. intaasi kadib waxaa la dhisay wadooyinka dhexmara magaalada oo xilligaas ka hor ahaa kuwa go'an. muuqaalkan warbaahinta Awow Media ayaa duubtay sanadkii 2016 waana mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada Hobyo dhexmara oo uu bacaad gooyay. haddase sidaan ayaa loo bedelay oo waa la dhisay. sodomeeyo sano kadib waxaa la howlgeliyay isbitaalka guud ee Hobyo
haddaba warbaahinta Awow Media ayaa dadweynaha ku nool magaalada Hobyo waxa ay la dhex qaaday mikrofoonka kun sagaal boqol todobaatan iyo afartii waa xilligii aan dhiga jiray iskuulka magaalada Hobyo markii aan ka baxayna kabacdi xalan aan galay waxaan kabacdi aan shaqada soo bilaabay kun sagaal boqol todobaatan iyo toddobadii 77 markaas magaaladu waxay ahayd inkastoo magaaladan ay kun sagaal boqol labaatan iyo toddobadii ay xusnimo qaadatay degmada saddexaadna ay ahayd waxay u ekeed magaalo ugu liidata magaalooyinka heerarkii ay soo martay heerar aad iyo aad u liita oo xag walba daciifka xagga dowladda ha noqotee ama xagga shacabkeeda ku nool ha noqotee bay soo martay inkastoo ay naga nayratay 2018 wixii ka dambeeyey horumarkeeda uu soo shaqo qaatay oo wadooyinkii loo dhisay isbitaalkii la weyneeyey wasaaraddii waxbarashada barbaarinta soo dhisay iskuulaad airboortkii la soo dhisay airboork wuxuu iska meel cawsa oo dowladeed buu ahaa airboorkii dhistay waxa u malaysan in ay ka soo kabanayso dhibkii tartiib iyo guddoomiyaha degmada Hobyo fahad bitigoodii iyo dadaalkoodii ayaa intaanay ku tiri haddana waxaan keenayna waxa ugu dambeysay gabadhii madaxweynuhu uu qabay Sayrib oo tiri isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ayaa dhisayda waxaan dadka u dhashay hadda ku horba waxa jirtay war yar oo kabtana markii dekada la keenay Hobyood ayaa suuxi dambe subaxda ka soo waxa loo raray Boosaaso alaabta kulligeed kumbad ayuu ahaa keenay 70 taleelayaal ayaa qaado Boosaaso u qaaday madaxweynihii markaa joogay Maxamed Siyaad Barre Allahu naxariistay baa waxa maxaa u raraysaa alaabtan waxaan u rarayaa buu yiri magaalada dadkii iska lahaa waa London iyo Paris iyo Bubaasho dhistay marka magaaladan waxa baabaashay waa dadkeedii waxaan ku codsanayaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Hobyo ku dhashay 90% dadka Soomaaliyeed ugu taajirsan weeye in ay magaaladoodii iyo dantooda ay daneeyaan dalkaaga dhiso ayaga dadku tahay bismillaah magacaygu waa Cabdifataax Maxamed Cali walaal magaaladu magaalo waxay mugdi ku jirta maamulkan hadda hortiis ana magaaladan 2006 ay ugu horeysay meel waxay iska bahal galeen oo dal oo waa hore laga guuro oo magaalada dadkeedii hore u dayacay ayay ahayd oo qofkii caqliga iyo qofkii wax bartay sidii looga wadanayay dad jawlaha kaliya looga tagay waxqabadkii magaaladan loo qabtaan kaaga sheekaynaya marka koobaad wadadana ugu horeysay waxqabadkii magaaladan sida loo qabtay wadadan hadda aan taaganahay waa wadada magaalada ilaa dekada ilaa madaxtooyo isku xirta weey wadadaas baabuurta fool wadaafka meeshaas waa laga jiiday nagasti waxa ku xigtay airportka magaalada ku xigtay oo magaalada airport ma lahayn oo bacaad bay ahayd waxqabadkii saddexaad wuxuu ahaa iskoolkan aad u jeedo magaalada bilaa iskool bay ahayd oo jiilka yaryar oo soo koraya meel wax ka bartaan ma lahayn afraad waxay ahayd waxqabadkii weynaa oo laga qabtay magaalada gudaheeda wadooyinka loo furay oo la tijibiyey oo la hagaajiyey bay ahayd oo wadooyinkan shayga meel walba u dhaxda la saaray midda shanaad waxay ahayd dhismihii isbitaalkaas waa ugeeda 2 qol ka dhisnaa 2 qol ayaa ka dhisnaa oo hore Talyaani dhisa haanta iyo derbiga wareegsan iyo meesha dadka lagu qalo iyo qolka kaydka daawada iyo wixii la halmaala meeshaas waagaas laga asaga sameeyay maamulkaas sameeyay degmada sidoo kale waa tan degmada waa tan ayaduna 2 jeer ayaa marna guryaha la dhisay marna hoolkaas laga dhisay iyo derbigaas oo ayadana sidaas ahayd oo waxqabadkii 7 bay ahayd waxqabadka 8aad oo muuqdo oo la dhihi karo waa waxqabad weyn oo muuqda waxay ahayd adeegan soolaradan ilaaskan soolarada solar systemkan ayay ahayd daraad waad ogeed adiga laftigaagu halkan waxaa laga dhagax dhigay isbitaal hooyada dhallaanka iyo mid adult education dadka waaweyn waxbarashada dadka waaweyn ayadana waa la socotaa oo meesha laga dhagax dhigay waxqabadka magaalada haddeer dadku waxay ku gaaraan habeenkii 8 saac 9 saac ay ku gaaraan magaaladana waxaan arki jiray ayadoo maqribka laga kala hoyaado oo ay taa meel bahal galeen oo qof walba baqayso magacaagu gulo istaahil Sheekh Abdullah istaahil ka waran magaalada Hobyo dhowrkii sano u dambeeyay waxqabad aynka ayaa laga qabtay si aragtaasi waxqabadka maamulka uu ka sameeyay degmada Hobyo ma sha Allah
waxaan u arkaa horta boqolkiiba boqolta waa mahadsan tahay maadaama su-aalahaas aad weydiisay waa ku mahadsan tahay mudnaanta koowaad waxaa mudan maamulkeena Hobyo waxay qabteen waxyaalo soo koobi kara maahan magaalada markii hore waxay ahayd waa la ogyahay hadda waxay tahana waa loo jeedaa waxay qabteen maamulkan wuxuu qabtay waxyaalo badan oo bilica waxaa lambar 1 u ah wuxuu sameeyeen airport noo sameeyeen isbitaal baana loo sameeyay wadooyinana loo sameeyay gob iyo ayagba noo sameeyeen maasha Allah wax la soo koobi kara maaha magaalada tuulada geejin inta ku baxay isku dhex yaacsan ay ahayd magaalo ka soo saaray maasha Allah arwaxo intuu hay wax weyn buu noo qabtay dadba annaha sheega golaha deegaanka waa noo dhisay airport waa noo dhisay laakiinse gob jidka maro wadada waa noo qodiyay maasha Allah hadana wax kalsoonaa boqol hay waxaad dareemaysaa wax qabad ahaan Hobyo isla waxa laga qabto waa ka tilmaamin karaa wax weyn ayaan ka tilmaamin karaa ka dhigay waan habeeyay waa hagaagsan yahay airport noo dhisay iskuul baa noo dhisay isbitaal waa noo dhisan yahay haddana rajo kalaan leenahay macnaha in haddana noo dhiso waxaa kaleeto leerar waa noo geliyay magaalada har iyo habeen lama kala yaqaan waa dhiarnayd waxaan ku leeyahay waa ku haysanaa waa weyn oo ku soo kordhiyay weyn oo aan yareyn oo qof walba ay ku qanacsan tahay waa caruur yar oo xilli habeen ah ciyaaraya kubadda cagta iyagoo ka faa'iideysanaya leerarka iftiinka cadceedda ku shaqeeya oo lagu xiray garoonka أي ما قاعد يشكر محمد سعد سعيد أي قرنك هذين كسوق عيارتنا صمان كعيارنا قرنك الحمد لله أول ما نكو عياري جري مجدي هذا الليرر بان الحمد لله كفر أحسننا هذا الناس قرحياء وبعنا محا ليه هذا لقى قبت مركع وحاول إن الناس قرحيسي قرامضة كان كدوجي كلام يا ما قاعد يشكر عبد الحميد هذا واقع يرتان قرانك أول مقدم يوها أول هذا تنا تيم لقى نحن وعيارنا أول مقدم سلامي أول مقدم ما كان معنا عيال جرنا هذا لك معي magaaladu hadda waxay u muuqataa magaalo soo kabanaysa markana waxa la joognaa Cabdulooyar yahay yani haw socodka ganacsiga degmadu maadaama ganacsiyada kamid tahay ما شاء الله بقول كنا سراشن سكان أو كذا جناس لا أفر بالوضع أنت تجينا هاي ما شاء الله أبي جناس بقول كنا سراشن وقصص وطرنا والسوتر يعني آدي سنة ذكر iyo maantay farqiga u dhaxeeya maxaa ka sheegay Hobyo qadaad iyo ama ganacsi noqoto ama xagga bulshada dhinac
wax badan oo dhaxay wax badan oo iska bedesho hobyo waxay u ekaanay magaalo oo cusub hadda way soo 90% bulshadu waa ku soo saaciday waxa way ganacsigooduna u soo taraa aadana ugu faraxsanaa hadda magaalada dhaqdhaqaaqeeda iyo xaaladaheeda magaalada oo kale waaye dib u habeyn lagu sameeyay soolaro oo geliyay waa la gelshay waxa way korontadu waa iska dhiicanayd hadda waxa way 90% waa soo kabanaa nolol fiican ku tilaabsatay marka aan dib u malacsano dhowrkii sano ee maamulkan uu ka jiray guushada maamulkan waxa uu faa'iido keenay waxa uu gaaray intii markii la qiyaaso waxaan ku sifayn karaa inay tahay degmo laga soo bixiyay god ayadoo ku jirto maantana maraysa meel nolosha ay kala jaan qaadi karto magaalooyinka kale waxyaabaha la sameeyey markaan dib ugu laabta maalintan imaanayay maamulkan oo la u diiday xilka magaaladu waxay ahayd magaalo aan lahayn haba yaraatee waxa loo yaqaan infrastructure ama nidaam system dowladnimo ama maamul ama jid ama iskuul ama caafimaad yani haba yaraatee wax ka jiray oo shaqo ah oo bini aadamka waxyaabaha xaqa uu leeyahay noloshiisa ka mid kaamin magaalada markaan imaanayay waxaan ka calool xumoonay waxyaabaha ugu dhibka badnaa ahayd 17 jir 16 jir 15 jir da-da ku hooseysa ilaa ay ka gaaraan 20 jir aad isku dhigan tan iyo intii burbur ku dhacay 2016 ilaa wixii ka horreeyay waxay ugu dhalaysay aragti yani ah in horta marka ugu horreysay bulshada dadka ama meesha dadka ku nool tallaabada kood ay qaadan inta aqoon in laga kaabo waxaan ku guuleysanay isla markiiba inaan u dadaal tagno sida aan iskuul ugu heli lahayn maantana ilaahay mahadiis waxaa arday kor u dhaafaysa 400 oo arday oo dugsiga hoose dhexe ah oo aan rajeynaya sanadkan sanadkii 8ka ama dugsiga dhexe class ugu dambeeyay inay ka bixi doonaan ayaa magaalada maanta wax ku barata waxyaabaha kale oo aad baahida dadka ugu qabeen oo ay ka mid ahayd caafimaadka magaaladu waxay magaalo gabadha umuleysa gaalka ay loo qaado ama hubbi loo cadaada loo qaado oo la sii wada 260 kilomitir wada aan lahayn meel la mara aan lahayn qofku kiliyaha ay xanuunayaan qof uur leh iska badaa saacadaha la sii socdaan ay 9 saac ilaa 10 saac la gaarayaan nasiibad taasi waxay keentay in dadaalka labaad iyo xoogga labaad aan geliyay sida aan magaalada ugu helnay alxamdulilah maanta waxay maraysaa magaalada inay leedahay cisbitaal dhamaystiran qalliinkii qalabkiisa u yaal oo ah cisbitaal lagu guuleystay in qofkii dhib ku dhaco ee ah qof dhaawacmay lagu dhayi karo qofka dhalaya lagu dhalin karo qofka qalliin raba ama lagu qalaayo haday tahay dumarka oo meelaha loogu daro in maanta alxamdulilah lagu qalo faa'iidada labaad ahayd oo caafimaadka tan saddexaad waxay ahayd dadka umada guuleysteen xagga horumarka waxaa wada magaalada inaysan ka jirin wax dhaqaaq ganacsi ah haatan magaalada waxay leedahay goobo ganacsi oo aada u nuuraya oo dadka ay shaqooyin ku qabsadaan magaalada waxaan ka hirgelinay oo aan u suuq tagnay annagoo ku dadaalayna in dadka deegaanka ku abtirsan ay ku guuleystaan ama ay u maalgashtaan wacyigelin iyo dadaal fara badan kadib waxaan ku guuleysana magaalada in laga dhashay shir ay ku baxdeen lacag gaaraysa ilaa milyan iyo ka badan dollar oo loogu talagalay in fishinka ama malaayga kalluunka lagu diyaariyo processing loogu sameeyo taasoo ayadan ay shaqo keenayaan dad aada u fara badan oo deegaanka ah marka ay kacdo waxyaabaha kaloo aan ku guuleysan waxaa kamid magaalada meel la mara lahayn waddo malahayn markaan imaanayn magaalada maanta waxay leedahay wadooyin waaweyn raanaboodyo ama raanaboodyo waxa loo yaqaano ah dawaarada cidaafacda ama wareega nolosha isdaafaan waxay leedahay magaaladu jidad dhowr xaba ah oo aan ka bixinay oo suurtageliyay maanta in bini aadam magaalada ay qayb ka qaataan waxyaabaha aadka muhiimka u ah ee aan ka fikirnay
oo aan ku guulaysanay in aan tallaabo ka qaadan waxaa ka mid ah magaalada ma aysan ahayn inaan ku roogyahay waxaa loo yaqaano dadku isdhexgalkooda magaalada waxay magaalo kala qoqoban dadku qabyaalad iyo uqdalo ay kala qabaan maantana waxaa lagu guulaysay in integration ay sameeyaan bulshada ay isdhexgasho dadku ay yihiin dad yani isdhexmara waxyaabaha kaloo alxamdulilah magaalada intaan hawsha ka haynay ama maamul dhisnaa aan suuragelin waxaa ka mid in airport laga dhisa magaalada malayn wax airport laga hirgeliyey suurtageliyey in wufuuddii ugu badneyd ee galmudug ee ama shisheeye ah ay kasoo degaan yani waxaan qiyaasi karaa magaalada hore inta kasoo degatay ee wafuud caalami ah oo ama safiiro leh ama hay-ada samafal leh ama ganacsato heer caalamiya ma jirto magaalo ay ka degeen magaalada galmudug markaa saas leeyahay iskama lihi waxaa ka mid ah safiirada dalkan yimid safiirkii dalka turkiga waxaa ka mid ahaa safiirka dalka qatar waxaa ka mid ahaa hadii la ku reeyay hay-adda kaalmada talyaaniga ninka u qaabsama Italian Corporation oo isagu suurtageliyey imaanshihiisu in wax badan ay nooga qabsadaan waxyaabaha kale oo airportkaas aan ka faa'iidaysan waxaa ka mid ah imaanshihii madaxweynihii dowladda federaalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu yimid 2018 bishii Janaayo kaasoo dhagax dhigay dekeda aan rajeynayna inay dhibaato gasho waxyaabaha aadka hadda aan ugu guulaysan waxaa ka mid ah in dadka loo jiheeyo dhinaca horumar oo kalluumaysatada dadka ahaa aan u raadino waxyaabaha maalgelinada ah ee u baahan sida qalabka hay-ado badan aan uga codsanay waana lagu guulaystay alxamdulilah in la helo qalabka la doono isugu doomo isugu jira maxaa kula qaboojiyaal waxyaaba fara badan dadka caawina walow aysan ahayn wax ku filan ama kafayn kara baahida dadka haddana dadaalada la qabtay ka mid tahay waxyaabaha kale oo aad u iloobeynin oo aan isleeyahay magaalada waa lagu soo kordhiyey waxaa ugu waaweyn in aan ka bedelnay systemka dadka ay u fikeri jireen ay ahayd dadku inay keliya sugaan gacanta dadka sheegaan laakiin aan barno dadka in horumarin loo sameeyo wax developmentiga layaado tusaale magaalada hadda waxaa ka socda mashaariic ay ka mid yihiin dadku in ay ayaga isku tashadaan wax la qabsadaan oo dhinaca xoolaha horumarintooda dhinaca kalluumaysiga waxaa jira deegaano fara badan oo magaalada hoos yimaada ama degmada hoos yimaada oo ayagana laga hirgeliyey beero dadku ay ku intifaaceen sida xeebaha iyo deegaano kale kale magaalada waxyaabaha aan inta maamulkaani jiray aan ku guulaysan waxaa kamid magaalada markaan imaanayna waxay ahayd magaalo mugdi oo wax ifa lahayn magaalo aan lahayn nal magaalo aan jiray shirkado korontada ah oo ka shaqeysta haddii jiraan waxa aan kuwa aanan ku filnayn ama aanan saacadaha ay shaqeynayaan inta saacado kale 6 maqribin ilaa 10 fiidnimo waxaan ku guulaysanay in magaalada kale shirkad weyn oo gekaliyaada ay timaado ay samayso mashruuc koronto oo magaalada ifiyo waxyaabaha kale aan aadka ugu guulaysan waxaa ka mid ah mashruuca solar systemka ah oo magaalada aan ka hirgelinay oo ay hay-adda Mid Foundation samaysay barnaamijkaas oo ah mid hobyo iyo wasiirba laga hirgeliyey aanan rajeynayna magaalooyin kale ama deegaano kale oo hoos loo hobyo inaan dhawaan ka hirgelino oo rajadeena mid aad u sareysa nolosha dhabtaana waxay soo laabatay magaalada caawa haddaad baxay ilaa waa beriga dadku waa shaqaysanayaan waa soconayaan ammaankeeda waxaa laga bedelay horumarkii nolosha waxaa iska bedelay dadka iska dhexgalkooda waxaa ka bedelay waxyaabaha aadka aan ugu qiimeyn magaalada oo dalkaas uu looga faaida waxaa kamid dhalinyarada ku mashquulsanaan jirtay golaha waxaan u sameynay garoonkii golaha habeenka dadweynaha ee degmada oo aan nalalka sawirka ugu xirno oo habeenkii ay footballka ku cayaan oo kubadda cagta ku cayaan aanan rajeynayn weliba in hadda si dhamaystirno oo qorshaha dhawaan aan ay tahay sanadka intaan dhammaan waxaan jeclahay inaan dhigno roogi loogu tagay cayaaraha ama tartanka footballka ciyaartoyda cayaaraysa iyo inaan dib habeen ku sameeyo meeshaas oo aan wax badan kusoo kordhino dhinaca sportka wax ka qaban degmada hobyo waxyaabaha aan ka faa'iido waxaa kamid tartanka ugu dambeeya hadda ee kubadda cagta markaan ka hadla isdhexgalka dadka waxyaabaha waxaa kamid sports degmada waxay noqotay degmada ugu cayaarta wanaagsan degmada tartanka cayaariga degmooyinka galmudug hoos baa gaalka ugu qabtay waxay ahayd kooxda keliya ee ka dhex timaadeen ee laga baqayo intaas markaa ka gudbo magaaladan hobyo waxyaabaha aan leeyahay maamulkaani uu kusoo kordhiyay amase aan waxqabadka aan oga sameyn waxaa kamid markaa dib umalacsatay magaaladan maalinkii xilkan loo magacaabay oo dowladii galmudug ee la dhisay in magacaabo maamulkaas suuragal maahayn madaxtooyada in la soo gaaro عشان waddo la-aan bacaad waxaa la cali garoonka iyo waxyaaba fara badan oo aanan nadaafada leedahay
wadooyin buura qashin ay yihiin aan ka qaadnay wadooyin aan ka bixinay wadada madaxtooyada hadda waxa laadmeed moodaa waxyaabaha kale aan ugu guulaysan waxaa kamid ah annagoo ka faa'iidaysanayno dadaalka ay samaysay aada god oo ayada runtii noo suurtagelisay dadkii contribution geystay ama gacanta geystay ha noqdeen amase dadka hoggaanku ama ha noqdeen in magaalada hore ay hesho waddo ka baxda halkan ilaa agaarkaxaye dhismo laga bilaabo iyadoo haddana mid meel fiican maraysa ah waxaasoo cilma waxay ku yimaadeen aan ka hadlaaya waa maamul haddaan maamul jirin waxba ma siiso maamulka hadduusan dadaal samayn waxba ma gaari karan waxyaabaha aan filayna marka oo mustaqbalka aan rajeynayna waxaa kow ka ah waxaan rajeynaynaa dhawaan in la dhiso dekeda weyn ee degmada Hobyo oo ah mid uu ballan qaaday madaxweynaha dowladda gobolka Galmudug oo aan rajeynayna in meel fiican arrinteeda marayso waxaa kaloo ku dhinac socda dekeda oo ah nooca jettig loo yaqaan oo ay ku soo xiran karaan doomaha cuntada ka keena Dubai oo aan rajeynayno dhawaan sanadka ama inaan bilowno September October oo hadda qandaraaskeedii tartan loogu galay Nairobi oo shirkadii dhismaha ay ku tartameen barnaamijkaas oo ay bixisay dhaqaalihiisa hay'adda talaaliga ee Military Corporation oo ay ka mid hay'adaha aan ku guuleysay oo aan imaanayay deegaanka Galmudug meeshii ugu horreysay in Hobyo noqoto oo Hobyo ay u ogolaato hay-addu inay ka hirgeliso mashruucaas fishinka loogu talagalay oo dekedaas ah midaa uga faa'iidaysan karno kalluumaysiga iyo midaa uga faa'iidaysan karno ganacsiga naftiisa oo ah miday kusoo xiran karaan doomaha miday ka imaada cunnada keena ama alaabaha bagaashka xaaladaas keena runtii aan filahay sanadkan intaan dhammaan inay dekedaas hirgasho ayna bilaabato hawsheeda laga rajeynayo in isla markiiba ay noo soo gasho inay kusoo xirtaan waxyaabaha aan u baahan nahay waxaa kaloo kamid ah waxyaabaha aan rajada ka qabno dhismaha masawaca ama waxa loo yaqaano traffic lightka oo loogu talagalay badda oo ah mid isaguna mashruuciisa dhawaan la bilaabi doono oo ah midka geeska Afrika ugu weyn waxaan rajeynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo in magaalada horumarkeeda maalinta in uu sii socdo sida aan filayno oo haddii ay noo suuro gasho qorshayaasha aan ugu talagalnay ama aan sida aan ugu sameynay balaanka ahayn qorshaha ay noogu dhaqaaqo aan rajeynaya magaalada wax badan iska weyn waxaan rajeynaya ilaahay diiwaanhada inay noqoto business centerka ugu weyn Soomaaliya waayo waa magaalo xeereed waa magaalo xoola beero bad kalluumaysi ha noqoto dalxiis intaba looga faa'iidaysto marka nasiibka ay leedahay deegaanka dhinaca kale marka la fiiriyo waxaa lagu tilmaamay meelaha shiraalka Soomaaliya ku jira meelaha ugu weyn ama ugu badan shiraalka badan marka haddii maamulka hadda shaqeynaya amase si saliima looga shaqeeyo oo aan ku guuleysan sida hore qorshayaasha aan steamiska aan u qaadnay ay noogu hirgalaan waxaan rajeynaya Hobyo inay noqon doonto magaalada ugu horreysa ee Soomaaliya waxaa loo yaqaanaa iyo qalabgalka horumar ay yaqaan magaalada ugu horreysa ama fursadaha dhaqaale ee haysa ayaa u suurtageliyay haddii maamulka sida aan wax u wadna ilaahay noogu fuliyo in aan gaarsiin karin in dadka magaalada ku nool ay noqdaan dad ayagu ku wada tabarka garan maamulka Hobyo waxaa la filayaa inay yeelato deked taas oo uu dhagax dhigay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan se weli la bilaabin dhismaheeda